xumaan kasbadan xumaantaasaa la qabaa laakiin in laysku tago faaraxow anigu ma qabo oo la yidhaahdo reeraas reer maxaan nahay anigu afaaf war afaaf dhulka waa wada degnaa waana wada leenaa magacayna waan leenaa anigu magaca aan sheegayo kama naxigo waaya waa walaalahay waa la dhasheen magacay ila wataan nasabkay ila wataan oo cidaan diidinahay maahan waaya laakiin laba qofood oo midna jareer uu yahay laba jilib saddex afar jilib in lays urursado jareernimo laysku urursado mabda ahaan waa ka soo horjeedaa mana wanaagsana sharafna ma ahan sidaasaan anigu hadda qabaa waayahay marka waxaad leedahay jifooyinka jira haddiiba ay siyaasaddu wax ka ay ka doonayaan waa inay horta halkaasi aadaan oo magaca guud aanay wada qaadeen sidaas aad ula jeedaa waxaan ka soo horjeedaa oona ka dhiidhanaa oon leeyahay dadkan reer bay yihiin anigu ma inkiraayo inay biimaal yihiin ay deegaankan ay xaquuq ku leeyihiin wa aan qirsanahay oo anaaba qirsano hadda oo ummadda dhan inay maqasho diyaar waay laakiin waxaan rabaa ayaga inay yimaadiin oo reerka ay leeyihiin war anigu haddaan ahay oo ilaahay iga dhigay jareer ilaahay xaggiis waan ka samanahay haddii uu ilaahay iga dhigay reer baan leeyahay reer baan ahay sacadaan ahay sacadkaasaana ka raadsanaa asaana eedaynaa asaana dhaleecaynaa laakiin waxaan ka soo horjeedaa kii daadowga ahaay iyo kii ismiinka ahaay iyo kii sacadka ahay iyo kii dabruba ahaay anigu hadda cabdiraxmaan oo nin cabdiraxmaan ermaga ahay oo jareera ahay dhahay ma arkin laakiin saddexdan jilbahanaan ka hadlaa marka in ay isku tagaan oo ay dhahaan afaafaan nahay afaafka jareecna way degtaa dhanka xeebtana way degtaa udubka la sheegayana waa dhinac xeebta waaye labada meelba waa la wada degaa jareecna waa degtaa jareerna waa degtaa labada dhinac labada meelba waa degtaa xeebahan oo dhan yaa degan ceel axmed yaa degan lexmoor yaa degan ilaa iyo mugi ilaa iyo borow yaa degan ayaa degan ilaa iyo ceelowr ay degan yihiin way degan yihiin waan ognahay dhanaanay degan yihin waan ognahay annagana intaas ayaga ay degan yihin aan la degannahay dawadiina intay degan yihin aan la degannahay bicagaar waa la degannahay tabakal waa la degannahay muraalaa la degannahay waa maxaa la yidhahda guriilaan la degannahay meel kastoo ay degaan dabaraayaa la degannahay meel kastoo ay degan yihin marka soomaalida kale kuwan biimaalka ah inay 24 saac tawxiid camal ay u qabsadaan afaafaan anagu afaafaan nahay urubaan afaraas ay yidhahdeen dadka soomaalida oo dhan way leeyihiin jalaci jareer way leeyihiin maxay doodaas u taagnaan weyse oo ay u dhihi waayeen oo deegaanadan hadda aan deganaa oo dhan saddexdan gobol hadda dadka ugu badan oo degan macnaha waa sidaasoo jalaci jareer way wada yihiin maxay u dhihi waayeen dad banaan taagan maxaa loo arka waayo oy leeyihiin annagu waa nala dhacay jaleecdayna na dhacday ay leeyihiin maxaa loo arka waayo nin kastaba xiluu raadinayaa xilkiisina uu ka raadsanaa reerka uu ka dhashay oo isku nasab sheegto maxaa yeelay anigu hadda waxaa la yidhahdaa cabdullaahi nuur cali cumar abuukar maxamed cali gacal adeer abroone dil yabar sidaasaan u abtirsanaa gacal adeeraan ahay waxaan kasi waan abtirsanaa sacadaan kusii dhamaanaa sacad eremagaan ahay markii dambe marka qofka aniga igu nasab ah anigina wax iga soo jarsado ugaaskii uu wax ka jarsado reerhii uu wax ka jarsado asaan laga rabaa inuu sidaas usoo maro laakiin 24 saac in laysku tago oo la yidhaahdo anigu macnaha waxaan nahay afaaf war adigoo daadow iyo sacab iyo ismiin iyo dabruuba mad afaaf aniga ii sheeganaysaa marka afaaf abtirsiima faarax musamay afaafku afaaf biimeel baan leeyahay maxaa leeyahay ii sheeg waaya ad eremagaan ahay ismiin eremaga waaye kan kale daadow eremaga waaye dabruuba maxamed waaye inta hadda macnaha dadka ay afaafka sheeganayo oo ay dhahayo ay leeyihiin marka afaaf isiga asalkiis wuxuu ku yimid ilma cala ciise waaye waa reer suldaan waaye nina wuxuu xukumayay doweyda nina wuxuu xukumayay deexda dhankan macnaha udubkaad leeyahay oo badda xaggeeda ayuu xukumayay labadaas qofood oona isku aabe ay ahaayeen marka tii jaabii iyo nidaamkaas oo waqtigii talyaani ka dambeeyey mayaa nalagu wadaa oo nalagu dhaqaan leeyahay anaguna afaaf iyo saas baa loo kala bixinaa waa may waayo qof kastaba reer uu leeyahay reer uu ka soo jeedaa uu ku nasab sheegtaa oo abtirsiimidiis uu ku tirsadaa reerkiisa uu dabada ka qabsanaa ama waxaa ka waaye amba ha ku helo amba ha ku dhargo cid aan lehayna male cid aan lehayna male macnaha soomaaliya maxaa loogu maqli waayo jiinkan webigaan inta nala deginoo digil ah inta nala deginoo mirifla ah inta nala deginoo maxaa jir ah maxaa loogu maqli waayo oo hal maana intay usoo baxaan udubya faaf maxay udhihi waayeen maxaa keligaa in anagu na taagay in kuwa annagana la dhasheen oo walaalahayna 24 inay dhahaan macnaha afaafaan nahay inay dhahaan war ninka aniga la dhashay
maxaa xagga maxaa geynaa waay anugu ila dhashay sacad aniga ah anaas ila dhashay anugu ii imaanaa keliga ha ii riixdo ha soo jabsado ha keeno ha ii yimaado ha ii yidhahdo i riix ibushgaray odayaalkii dhaqankii hogaaskii sasabkii ha u yimaado nidaamkaas waxa in loo maray aniga ay ila haboon tahay inay wala qurux badan tahay marka 24 saac korkaana gubtay waxaa lilahay 24 saac afaaf war afaafow adi kale ama degan udubow kaligayga ma degan marka yaana dhulkina sidaa lagu dhumin yaa sidaasna yaa qalab la gelin walaalaheen yaa la kala colo la jirin halka hadii la raadsinayo nidaam loo raadsidaas leeyahay dawladda laga soo dhamaystaa waa la meelaha la tagaa saaxiibaa la dhaqdaa xisbiyaa la galaa nasa waay laakiin ma ahayn ina macnaha maalin walba yidhaahdo afaafaanahay anigu dhoweyaan ka imid dee xakamay maan ani reer dhoweyaan degmada kurtuwaariyaan ku dhashay waayo marka lay dhigi karaa aniga marka maxaa la dhahaa afaafnima u doodaa marka meelaan ka dhashay bishan ka dhashaan u doodaa bishasaan xaquuqeynayda bishasaan u doodaa laakiin kuwan anagu biimaalka ah maxaa ayaga kaligooda ee 24 saac tawxiid camal ay u qabsadaan afaaf maxaa keenay maxaa digil jareeri jaraac uu leeyahay maxay u qayli waayeen mirifli way leeyahay maxay u qayli waayeen soomali kale way leedahay maxay u qayli waayeen maxaa kuwan kale ku jiro marka arrintaas waxaa leeyahay arrin kale waaye ujeedi kalena xambaarsan tahay waxaa leeyahay walaalahay dadka aad la dhalateen way taqaaniin lafaad kalatiin waa taqaaniin qof kastoo lafta uu leeyahay oo ka tirsan yahay oo la dhashay